السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن مالي وناكسن sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub ciwaanka maanta waxa qaadanaya Pushpatu tiimku waxay soo bandhigay poster waxayna soo xadeen posterkaas u jeedin oo ku qoran 75 maalmood ee naga xig daawashada filimka Pushpatu Allu Arjun hogaamiyay 6 December soo baxay marka waxa way Back to Hill waa Pushpatu tiimku waxay ballan qaadaan marka inuu san baaqanin Allu Arjun Sukumarna maalin dhaweed waxaana projectigan daawadayaal shaqadii si speed u socotaa waliba waxaan dhahnay filimkan halka saac hore ama kala barka hore inta ugu horeysa waa la edit gareeyay boqolkiiba boqol waa la fariisiyay inta kalena haatan editina lagu wadaa filimkan waa la soo gabagabay shaqadiisa u badan tahay wax yar oo saxiitaan kaliya dhiman Pushpatu marka 6 December soo baxa posterkaasna maanta waa laga soo bandhigay sidoo kale hadaan tafaasiil ka sii bixina ma aan si eegna Pushpatu iyo dabcan posterkan laga soo bandhigay oo u jeedin ninka hada posterkan wada humaaga ka buuxo dhuxushi iyo wixii lagu yaqaan geedihiina waa ka muuqdaan asigana waa sii jeedaa qaloociga isku dhex jira waa Pushpagi oo faraantiyada wati iyo waa Pushpaya meesha ka dhex muuqdo oo waliba la fahmi karin kulli laakiin muhiimadu waxay tahay Allu Arjun filimkiisa 75 cisha naga xigto posterkan tiimku waxay u soo tuureen la iloobin leeyihiin projectigan waa diyaar filimkan waxa la daawan doonaa saaxiibayaal duu alla idmo 6 December waxay isku dhacayaan filimka Java oo Vicky Gushal hogaamiye ka yahay dhinaca kale tan maanta ciwaanada koonfuraan heestaan Power Star Bowen Kalyan asigana posterkaas soo tuuray team Hari Hara Vira Malu waa ka foqday sababtoo shootanku aan baqaade haddana waxa lagu dhawaaqay 28 Maarso 2025 in la daawan doono marka hore waxa la 20 December la daawana macquul ma sababtoo filimkan shootankiisa boqolkiiba 80 meelahaas duuban 20 boqolkiiba camal dhiman hadduu marka wuxuu aan baqaade qaybaha ugu dambeeyay filimkan ku dhawaad 4 sano 3 sano shaqadiisa way socotaa Bowen Kalyan la ku dhagnaa doorasho uu ka aaday howlo kale uu ka aaday doorashadii uu galay waa guuleystay haddana hadda siyaasadda ku guuleystay hogaanka kuraasta ku guuleystay waxa soo dhigay marka ugu dambeyntii sadku imaada shaqadu bilaabay saadartay marka Hari Hara Vira Malu oo Bobby Dollar ka yahay soo kale tan kamid ah filmada ugu waaweyn hadda waxa lagu dhawaaqay in la daawanayo 28 Maarso 2025 sanadka dambe uu aaday marka official posterkaas laga soo bandhigay taariikhna waa loo yeelay Bowen Kalyan taageeraysa ku farxin sababta filimkaas uu dhintaa loo malay iska falaal iska galashay filim fariin boqortooy ah lacag far badan la galiyay fadhiid noqday laakiin hadda sadku uu imaada Bowen wuxuu ballan qaaday shaqada ka dhiman dhamaystiri doono tiimkan wuxuu dhahay taariikh qabsada taariikhdaasna waa la soo tuuray in 28 Maarso la daawanayo isla ciwaanada koonfur ka jiraan soo qaadanayna filimka Devara shabakada T2B waxay soo qaadatay xogta filimkan lacagaha lagu gatay 187 karoor la in ugu gatay laakiin 180 zida laakiin hadda waxay soo daabaceen T2B in 182 karoor qoliya cadiradaha qaybaan ku iibsadeen saadartay marka 5 karoor meelahaas laga reebay in dabcan waxba la isku adjust gareeyo suuqada kulli markii la sax xogta ugu dambeysay reliable la qaadan karo maadaama hadda daawashada filimka maalmo kooban naga xigto jimcadan soo baxayo 182 karoor lagu gatay intii filimkiisa taariikhda waa filim kaligiis oo hogaamiye ka lacagaha ugu badan la gato RR waa solo project ma aha sababta waxa ku weeliyay Ram Jaram labadoodana waxa ka weyn filimkaas xal Rajamoli product waa marka aan soo qaadana bal Devara part 2 iyo Release Business 27 bishan soo baxay nidaam waxa lagu gatay filimkan 44 karoor lagu gatay waa lacagtu waxa la ugu badan NTR film hogaamiye ka oo dhulweynaha nidaam lagu gato Andhra Pradesh iyo Telangana guud ahaan markii la isku daranay 112 karoor iyo bar ayaa lagu iibsaday saadartay marka adiga 225 karoor marka soo xareeyay Telugu ayuu filimkan hit dhameystiran noqon doona dhinaca kale Karnataka waxa lagu gatay sidii diiwaan gashan 16 karoor Tamil Nadu waxa lagu gatay 6 karoor ku gateen Kerala waxa lagu gatay 1 karoor kali lacag badan lagu magadan Malayalam sida muuqato af Hindi inteeda kale tan waxa lagu iibsaday 20 karoor suuqada caalamka waxa lagu gatay filimkan 27 karoor overseas markuu 55 karoor ka soo xareeyo hit dhameystiran noqon doona saadartay lacagta guud ee qoliyaha cadiradaha qaybaan ku iibsadeen filimkan waa 182 karoor markuu dib u soo celiyay 184 karoor ayuu break even gaari doona waxa loo yaqaano ama uu noqon doona hit dhameystiran marka 184 karoor ayaa laga rabaa filimkan dib inuu soo celiyo ogaada aqyaare marka 184 karoor laba idin ku dhufsada leh kadib xisaabtaas laga rabaa marka inuu ka 184 karoor inuu masrax ka keena ma ahan marar badan waa ku celiyay tan waa sheerka lagu gato waa lacagta uu soo xareeyo sheerka guud ee qoliyaha cadiradaha qaybiyaan kaga soo aado marka 184 karoor almost waxa la taamiis 2 iska dheh 370 karoor markuu gaaray ganacsigiisa guud World War Garos ayuu filimkan noqonayaa dabcan hit dhameystiran saas ula socdo marka 184 karoor waa lacagta ka maqan qoliyaha cadiradaha qaybiyaan waa anoo ku dhawaay badeecadan iga qabo waxay ugu fadhisaa 184 karoor ay ugu fadhisaa kadib adiga waxa rabto ku gado laakiin lacagteeda ii soo celi 184 karoor marka meeshas in la fahmo in term of business aan rajeynaa marka 370 karoor filimkan markuu gaaro ay qoliyaha cadiradaha qaybiyaan lacagtooda u soo laabanay kadibna uu hit dhameystiran noqon doona dibad iyo dal intii filimada ugu dambeeyay dhawaanahan uu sameeyay lacagaha lagu gato markii aan soo qaadano Devara waxa lagu gatay 182 karoor iyo bar 13
T2B ku daabacan RR waxaa lagu gatay saaxiibayaal 451 karoor laakiin waxay ku soo qoreen multi star waa sax asiga iyo Ram Jarna isla hogaaminayaan aabahoodna filimku waa iska leeyahay Rajamouli waxaa kaloo la soo qaadan karaa Arvinda Sametha 91 karoor lagu gatay Jai Lava Kusa waxaa lagu gatay 86 karoor Janata Garage waxaa lagu gatay 68 karoor kuwaas oo waagi iska ah tooro goboleed laakiin after RR waxaa la dhihi karaa waa biggest movie ebed uu sameeyay kan iyo lacagta ugu badan lagu gatay marka nasiib aan original kulli waa career biggest aan release business laga helo solo project NTR kaligiis hogaamiye ka yahay marka hiirtaas kan u taala shaqo xoogan waa arki doonaa lacagaha dabcan uu keeni doono dhinaca kale markaan aan soo qaadana aqyaaray filimka lagu magacaabo Mathufa the Talarai Part 2 ayaa wuxuu noqday blockbuster dhameystiran kadib markii uu qaatay Weekend Brilliant filimkan hogaamiyaal ay ka yihiin markii la eego saaxiibayaal Satya iyo Siri Samha iyo Farhiya Abdullahi 10 days wuxuu ku soo xariyay 30 karoor hadda double blockbuster noqona xitaa waaba ka tilaabay blockbuster sida xogtaan T2B aan ka soo xigin karno projectigan haatan Talugu wuxuu ka soo xariyay 10 maalmood ugu horeysa 17 karoor bar teamkan risk weyn u barareen sababtoo laba isbuuc kaliya haysteen laba isbuuc dhaxda isbuuc waxa ka horeeyay filimka lagu magacaabo dabcan gooda ka horeeyay laba isbuuc kadibna waxa soo baxay hadda Devara soo baxay labadaas isbuuc dhaxdiisa filim galwa oo isku soo biimay labadaas filim waaweyn dhaxdooda laakiin Mathufa the Talarai Part 2 isku soo biimay markii qaar riskiga in la qaatana faa'iidadana leedahay marka 17 karoor baro Talugu ka soo xareeyay 9 karoor bar share laga helay ganacsigiisa guud World War Grossna wuxuu maraa 29.9 karoor waa 30 karoor iska dhaw soo xareeyay 10 days qoliyaha cadaaladaha qaybeen saami ahaan waxay keeneen 14.68 karoor projectigan 8 karoor bar laga roo dib inuu soo celiyo saadartay marka 6 karoor oo faa'iido laga helay hadda waa blockbuster laakiin wuxuu noqon doonaa double blockbuster noqon doonaa sida muuqato maalinkiisii 10aad 2 karoor bar ayuu soo xareeyay ganacsigiisa guud World War Gross taasoo ka caawisa filimka inuu hit dhameystiran noqdo marka teamkan waa ugu jirtaa dhinaca kale Natural Star Nani filimkiisa Sariboda Saravanam asigana weli uu gadma daawadayaal oo maha kana dhulweynaha Talugu maalmahana ugu dambeeyso wuxuuna dabcan haata maraa 25 days oo rasmi uu gaaray 25 days markii aan firna filimkan wuxuu ku soo xareeyay ganacsigiisa Talugu markii la dhaw wuxuu maraa 54.85 karoor 55 karoor Talugu ku istaagay doona inta toddobaadkan ka dhiman kaliya sii saarnaana sheerka laga helna waa 32 karoor dhinaca kale tan markii la eego suuqyada caalamkan wuxuu ka soo xareeyay 12 karoor bar af Tamil iyo dhankaasi Kareel iyo markii la isugu daray Hindi inteeda kale tan 7 karoor ayuu keenay ganacsigiisa guud World War Gross wuxuu maraa 96.95 karoor waa almost hadda 97 karoor soo xareeyay dhinaca kale tan qoliyaha cadaaladaha qaybeen waxay ka heleen 51 karoor ayay ka heleen sida muuqato share ahaan filimkana markii hore waxa lagu iibsaday 42 karoor 9.61 karoor faa'iido laga helay kani waa super hit waxa kale oo xusid mudan day 25 maalinkiisa 25 saaxiibayaal 60 lag ayuu keenay weli wuu sii gadnaa filimkan 23 lagna qoliyaha cadaaladaha qaybeen way ka heleen marka sidaas uu hadda filimkan wuxuu ku yahay sida muuqato super hit weyn inkastoo blockbuster uu gaaray laakiin waxa u diiday markii la eego culayska ka haysto dhanka dabcan toddobaadkan wixii ka dambeeyay inuu soo baxayo filimka Devara Sariboda Saravanamna laga bilaabo Khamiistan OTT Netflix aan ka daawan doonaa dhinaca kale Talugu kaliya xitaa markii la dhaw filimkan qoliyaha cadaaladaha qaybeen 30 karoor ay ku iibsadeen haddana 32 karoor waxay ka heleen oo dabcan dib ugu soo laabatay Talugu kaliya xitaa markii la dhaw Sariboda Saravanam hit dhameystiran noqdo marka filimkan si kastaba saaxiibayaal waa u gadnay dhinaca kasto ka gadnay dhinaca kale The Greatest of All Time aan soo qaadan ama God of Ije hogaamiye ka 18 days maalinkiisa 18 si hore uu gadmay intaanan wax kale horta guda galinbo day 18 kaliya aan soo qaadano World War Gross wuxuu soo xariyay maalinkiisa 18aad 6.60 karoor oo keenay sheerka laga helna daawadayaal waa 330 hadda markii la fiiriyo ganacsigiisa guud World War Gross aan soo qaadanna filimkan wuxuu maraa 441.65 karoor hubanti ahaan filimkan 450 karoor uu gaari doonaa qoliyaha cadaaladaha qaybeen hadda waxay ka heleen 215 karoor bar ay ka heleen marka horena waxay ku iibsadeen 100 iyo dabcan 187 karoor lacagtiisii uu soo celiyay filimkan 28 karoor bar ayuu maraa waa super hit wuxuu ku socdaa dabcan super hit noqonaa kadib inuu blockbuster u gudbaa laga yaabaa toddobaadkan gudihiisu dabcan blockbuster noqonaa maadaama hadda super hit uu qarka u saaran yahay 28 karoor bar faa'iido laga helay dhankaas iyo Tamil Nadu wuxuu soo xareysay T2B ee daabaciso 211.45 karoor ka keenay Talugu 13 karoor ka soo xareeyay Karnataka 27 karoor bar Kerala 13 karoor af Hindi inteeda kale wuxuu soo xareeyay 23 karoor bar suuqada caalamkana 153 karoor keenay sidaas ayuu marka filimkan ku maraya
441.65 karoor 215 karoorna waa laga helay oo qoliyaha cadiradaha qaybiyaan saa darteed marka Vijay filimkiisa awooddaas ku gaday ee mahana duusan Vijay ahaan lahayn filimkan daadka qaadi la meeshan email u dhawna ma gaari lahayn saaxiibayaal dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxa qaybkii hadii aan eegno dhanka waxaan u jeedaa oo sheeko xiisa badan director Cortala Siva wuxuu sheegay markuu Devara Part 2 sameeyay kadib projectigiisa inuu u sameyn doono Bravas labadan filimkii wada sameeyay wuxuu ahaasan ka warqabnay Mirji oo hadda ka war Blackbuster lixaad noqday haddana waxa la after Mirji kadib ay madoobi doonaan almost 12 sano kadib laakiin hadda waa goormehe ninkan Devara 2 suuga inuu sameeyo Bravasna waxa waa cubka waa meel laga soo gala malaba Fawuji hadda Raja Sab iyo Fawuji iyo Kalki 2 iyo waxa suuga Salar 2 iyo Bravas yani iraade iyo dabcan Spirit after 5 movies shan film kadib la ma dhaw markii xilli uu la shaqeyn doono laakiin Cortala Siva wuxuu leeyahay waxaan hubaa after Devara 2 inaan saaxiibkayga Bravas la shaqeyn doono dhinaca kale ninkii Ali Abbas Safara kama xishoonin shirkadda dabcan lagu magacaabo Buja Entertainment iyo Buruug Cadaaga caanka ee Fashul Bagaan oo shirkaddan iskale wuxuu leeyahay 7.30 karoor aan ku leeyahay lacagteeda ay siiyaan bad miyaan Jodmian u sameeyay waan ka warqabnaa filimka inuu fashilmay dhinaca kale tan 350 karoor budgetkiisa uu gaaray World War Garoos xitaa bad miyaan Jodmian 100 karoor meelahaas uu gaaray wax faa'iido naf badan laga helay filimkan asaab burbur markuu soo baxay toddobaadkii Ciidul Fidriga laakiin hadda wuxuu leeyahay Ali Abbas Safar lacagtii lagu leeshay still ay ma siinin 7.30 karoor iga maqan uu leeyahay waxaan u baahanay in lacagteedii siiyaan Buja Entertainment hadii kale wuxuu ka dhawaaj inuu maxkamad ka dacweyn doono nimanka ma iska diis ayagaaba u yaatooda u yaaban sababto ee markii la fiiriyo lacagaha ka maqan iyo sidoo khasaare ula kulmay company-ga ma dhaxasta waxa la dhahay xitaa ma awoodaan inay dabcan xitaa siiyaan qoliyaha markii la eego dadka shaqaalaha la shaqeyn xitaa ma siin karaan lacagtii ay ku leeyihiin saa darteed marka waxay inuu isaga dhaafo lacagta laakiin wuxuu leeyahay lacag dhaafo ma gasho aniga 7 karoor ee barna kama sabri karo leeyahay directorkan oo ka dhawaajiyay inuu ka rabo teamka Fashil Bagani iyo sidoo kale to producer-kaas caanka iyo wiilkiisa Jackie Bagani oo company-ga madax u ah sidoo kale tan lacagtaas uu leeyahay 7 karoor ma laga maarmi karo 7 karoor lacag aad u badan waay marka wuxuu leeyahay lacagteedan u baahanay halisiyo Akshay Kumar xitaa mar dhaweed waxa la sheegay lacag uu company-ga ku laabo u dhaafay ma uusan u dhaafin laakiin wuxuu rabaa markii Brito kale mustaqbalka lacag helaan uu ka qaato Kumarna asaaba shirkaddan wuxuu kamid yahay ragga Kiitsiyo hore wuxuu kaga qaatay lacag far badan waxaan ka warqabnaa wuxuu u sameeyay Bell Bottom u sameeyay Mission Ganja kuwaas oo lacag badan kaga dhameeyay oo mid kastaba uu kaga qaadanay 100 karoor iyo ka badan marka filimkan hadda badmayaan Jobniya 350 karoor gashay waxa la leeyahay Akshay Kumar iyo Tiger Shroff ma bahadli karaan lacagahoodii inta badan waa la sii Ali Abbas Safara soo hadlay wuxuu leeyahay aniga lacagteeda u baahanay halisi Kumar oo kale waxa la saaxiibayaal 80 karoor ka qaatay company-ga horumaris ahaan 20 karoor ugu dhimantay inuu 20 ku dhaafo laga yaabo Tiger Shroffna 40 ilaa 45 karoor ayaa dabcan lagu leeshay in la siiyo Brit Firas Kumar 5 karoor la siiyo isku ma haysto saadarta waxa la marka meeshan waxba ka dhacay Ali Abbas Safar waxa lagu leeshay 25 karoor ilaa 30 karoor inta u dhaceys marka intiisa badan uu qaatay 7 karoor oo iska dhaafo wadiideen wuxuu taagan lacagteeda halisi hadii kale ma sabrayo leeyahay marka daawadayaal intaas idinka daba geenaye bal qodobadii aan soo qaadnay mid kaysi gaar ah ku soo jiitay commentiga ay ka dhiibo xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub kanaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.